انت سرى اختر كعلن كينا وحن كهلا علن كي النبي عيسى النبي محمد نبي كهريي لا اله الا الله عيسى روح الله انك قرنيدنا لا اله الا الله سنه كقرنيدو كتابك marka waxaan ka helay qisasul anbiyaa majalisul arays leeyahay oo afteer xagga qisooyinka qisas 24 xaraf habeenkii dhalaartuna waa 24 saacadood Sheekh Maxamed Sheekh Axmed Yaasiin oo ka mid ah culimada gobolka Gabiley ayaa sheegay in calanka Somaliland ee ka kooban 3 midab isla markaasina uu ku yaalo tawxiidku ay ku jiraan cilmiye taariikhi ah. Sheekh Maxamed oo telefishinka CBA kula hadlay magaalada Gabiley ayaa sidoo kale ka hadlay aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland iyo halka uu marayo. Salaam madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. Salaamka bacdi waxaan ka warramayaa la ilaaha illa Allah Muhammad rasuulullah. La ilaaha illa Muhammad rasuulullah waxay ku ina tirana waa ina raacno. waxay noo diidan waan ka tagnaa inta ka bacdi waxaan calaamadan midabadan baan kal baaris ku sameeyay xagga cilmiga inta sare akhtarka calankeena waxaan ka helay calankii nabi ciise nabi maxamed nabi ka horeeyay la ilaaha illa allah ciise ruuxullah inuu qornaydna la ilaaha illa sano ka qornaydo kitaabka marka waxaan ka helay qisasul anbiyaa majalisul arays leeyahay oo afteer xagga qisooyinka qisaska kitaabka labaad ee suwar saxaaba ka sheekeynaya asxaabtan waxaan ka helay qaybta labaad inay tahay calankii nabi maxamed qaybta saddexaadna waa qoladii cabaasiinta loolanayay saddexdan midab ee calankeedu ka kooban yahay saddexdan midab ee islaamku jecel yahay weeyaan marka waa inaan horta ilaahayna ka baqno meel kastoo joognana waa ilaahay ka baqno adduunyada waa laga tagayaa nin walba ka tagayaa oo ka soconaya waa inaan isla iswada cafiyo oo waxyaalahan miiryaha la isku marinayo la iscaacaayay in la iska daayo ummadda islaamka qof walba uu dhimanayo adduunyada laga tagaya oo soconini walba kelmadda shahaadada in la eegana weey marada kala di shahaada lagu qoro waa inaad shahaadada indhaha ishaa waa ku dhacdaa la ilaaha illa muhammad rasuulullah tiin xamaasad kale ku qaado waa inaad la ilaaha illa muhammad rasuulullah akhrido waa inaad raacdo mahdigu hadduu soo baxana calaamada calanka ku qoray la ilaaha illa muhammad rasuulullah buu calanka u eeganaya calankeena iyo calanka sacuudi oo kaliya ku qoran la ilaaha illa muhammad rasuulullah caalamka gabigiisa saasoo calankeena uga saraf badan yahay calaamada kale la ilaaha illa muhammad rasuulullah waa 24 xaraf habeenkii dhalaartuna waa 24 saacadood waa la isku qiyaasay habeenkii dhalaartii calan sibtoo kale u noqonaya waxaan soo jeedinayaa calankeena shahaadadan ku qoranay inaan shahaadada raacno oo ilaahay ka baqno cid walbana ilaahay baa inoo soo wajaafaya اعترافكينا وين نجا إمك على الجلجليو وحنا هاي ومدن نوي ومدن سومالي لان اعتراف كان سوينين نجا راجع وين ربي ونصي وحين نجا هوري ما دين نجا راجع ربي هو تكسر بانلنا وحين نجا راجع نجا هوري ما دين ربي هو تكسر بانلنا سنة كاعتراف كتقال باكل الله سعود هذه الاعتراف في الصومال بس وكارت على اعترافك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكريان نوح إبراهيم تلفزيون كCBA قبل كجبلي.